وسألت يوما أين نور الدرب أين هو الصديق أمضي أفتش عنه عن أمل يصاحبني الطريق أبحرت والأمواج تخنقني وأنفسي بسم الله الرحمن الرحيم waxaa hadda ka hor la soo maray waqti uu sheekha la yiraahdo Xasaan Xuseen uu oran jiray jamaacada muslimiinta ah ee isu taqaan al-jamaacatu al-islaamiyya waa khawaarij dhiigoodu banaan yahay kadib uu dalbay in la wada hadlo wuxuu ka cudur daartay in la kulmo wuxuu Maxamuud Nuur Cusmaan u soo diray 4 su'aalood afartii baa looga jawaabay kadib uu soo diray warqad dheer oo naqdi ah kadib baa warqadii waxaa Maxamuud Nuur uga muuqatay 34 arrimood oo gafaf ah gafafkii buu u cadeeyay iyadoo wadata adilada uu u cuskaday Xasaan wax dambe sooma qorin marka labadaas qoraal iyo jawaabahooda waagaas baa la daabacay waana la heli karaa waqtigan waxaa ka dambeeyay inuu bilaabay inuu yiraahdo jamaacadaas khawaarij maaha التكفير بالذنوب ما أنت نمان قبانو ما أرى oo dadka maanta khawaarij way waa takfiir lagu hayo ma qaban qadiyada ayada waxaan kaloo aragnin takfiirin hay ruuxan mukallaf ahayn ama aan caaqil ahayn waxaan kaloo aan arag wax takfiirin iman kufri ku dhicin hawlahan dambe siyaasad baysan ka marnayn tanaafus baysan ka marnayn xadgudub baysan ka marnayn taaddi iyo tajannub baysan ka marnayn nimanka maanta adduunka badankood takfiir baatiin lagu hayana waxa weeye وأنمن قال لما أتكون على كوكو تكفيرين لكن لغة ضوابط ما إيجا فرق بين الخوارج والتكفيرين ما أنت وأنمن كلغة نمان كمان تكفيرين لو يقان وأنمن أنت قال لما كون على كل أنه وحي يرداركم كافر باطي أديك أيو وحي كوكو بابا خوارجنا وحيلها يني ومن زنى فقد كفر ومن شرب الخمر فقد كفر ومن كذب فقد كفر ومن اغتاب أخيه المسلم ولم يطل من ذلك فقد كفر بل من سرق حبة حمضة فقد كفر بيتاقناي لكن وقت دور شرعي تمي كنا فاني إن إساق لغا عراري إيا إني جماعة خوارج تهي كوا ميشانو اللقوي شيطاننا عفوا شيطان لقوي عنده الله وحيان أطيرده يا ميشان فرديا قوليه دبالله يا خوارج عصبين بركة كوا بين ليالوي ميل لو مرنا قاقين كل لقوي نكون أيجا ودين إبليس دين شيطان ودين شغل كله هاي نبي محمد يمسلم شغل كله ما اسكو قال أوش عيدا kadib baa la weydiiyay Maxamuud Nuur inuu ka jawaabo hadallada Xasaan markaa uu dhowr sadar ku soo jawaabay oo la oran karo waa xaqiiqada jirta waana tan iyadoo tix gabay ah oo loogu magac daray maxaa cayda kugu koobay hoyala yoye hoyala 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 yoye hoyala 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 yoye علمي هدونا الدير يا حسن مو عاروديني هدو عاقل يا هشاشة ذا النقا معايني حقاني ما نعيد من يبا عذو مموديني علوم بوك اللحظة حجة بوك عريايا ninkii ciirsan ballagu yaqaan xayla badiyaaye beentuna xolkiyo watiyo cududi weeyaane cunahan ku dhagay faan cidlaaba u caadaahe ilin sheekh cabsibo oon lahayn waa canid adaga markuu dooda calankee mudo caarifka ismuday ciidamadii xujada baa ku riday meel ciriiriyaye sodomeeye ceebood markii caadka laga fayday waa kii codkii gaabsadoo caraara waagiya war haddii culunka maqneed caawa lagu siiyey oo aad rogaal celistiri galabba waxayne
cadceeddoo barqaamaad xujada dirka ka caddaysid ciyaal suuq miyaa tahay maxaa cayda kugu koobe annagu taan caaqidayna waa sidaa cadceeddaaye adaa laba codleeye raggan warcad baw dhigaane casharaadka badanku tubtayo cuskanayeene cillad baad ka weydaye haddaa ceeb maqaariseene dastuurada camimay uunka iyo gaalka laaciseyo cilmaaniyada faaftiyo kufriga calan wallaynaya cilmigiyo kitaabkiyo sunnada cidda lagu dugay caqabaadku waa laga dhigiyo culumadin sheegta nin caalima culabaa u taaliya culays weyne ciyaaruma eke waa inuu runta caddeeyaye rag caaqida adagliyo inuu cudud abuuraye baraada cilmiga laga aqriyo camalka yeelaaye wadaad caasiyooboo jidkii nabiga cayaya tawxiidka cadowsanahayo coliyo basmooda sunna buu ciidaminayaa waa cod aan jirine cajab laga nixiyo waa adduun camaaladiisiiya waada iyagu ururkooda ka hadlo yidhahda 72 baan dacwada bilownay 86 baan hawlahan samaynay taa waa masaa'il kale oo niman xisaabo kala wato way hadda koor waan kuu sheegay sheekh cabdiraxmaan ibn xasan ibn maxamed abdul wahaab saaxiib fath al-majid oo geeriyooday 150 sano ka hor ayaa wuxuu kitaabka adur saniya ku leeyahay wadamaha caalam islaami maanta ka jira kulligood lama oran karo waa daar kufr maxaa jira ad-dacwa tawxiidiyya oo awogay uu la yimid oo bilaabay caalam meel badan bay gaadhay wadamaha ay gaadhay dacwa tawxiidiyya maanta ay ka taagan tahay waxa kamid ah buu sheekhu yiri Afghanistan iyo Soomaaliya kitaabka adur saniya mujalladka 956 laga akhriyo waa goorma 150 sano ka hor شعالي مجرتين جريديسي وحا لغا جوغا 145 سنه wax ka badan markuu la taagnaa waxa ariga loo qaro muxuu qubuuraha waa xaraan wama uhilla li ghayri allah ma ukulu wama uhilla li ghayri allah ari qubuureedka markuu taag uu lahaa ay gabyahay masaafaadkiisi goormay ahayd intan taaba la gaan sheegnuudin calcul hada dhintay muxuu ahaa waa dhintay kitaabkiisi leeyda kitaabkiisa la oran jiray hidayatul mustafid fi ilm at-tawhid wuxuu ku sheegay 420 aayadood oo shirki ka digaysa iyo 120 xadiis oo shirki ka digaysa ala tariiqati as-su'aali ala tariiq as-su'aal wal jawaab waxa la daabacay kitaabkaas 5 shilin oo Soomaaliya qiimihiisu ah sicirka lagu iibsanay xamar oo mashhuur ku ahaa culumadii Azhar iyo Masarna ay taqdiimiyeen Sheekh al-Azhar Sheekh mufti Misr ba taqdiimiyay waxa la daabacay 1960 qiimaha lagu iibsada muxuu ahaa 5 shilin oo Soomaaliya توحيد كان واهر صوماليا كبل لوضي وهذا محو هذا ايغو سياسه ku socdo reer macalin ah warkooda in lagu lugeyn dadka fariinta waan u gaarsiinay wixii hadda ka dambeeyo waxa weey ama ka horba ninka shirki laga kari waayo waa la mid raacinaya inuu asagu toobad keeno warkiisa cadeystaba mooyeen wax noogu haray ma jiraan fa inna ma alayka al balaaq wa 'ayn al bayan waa gaadhay hawshaasi banaankay taala الشرع وحجون وحيكو قميسا بلوغة كلية إن روح الشبهات كي كدام مادان شرط معها نبي وحوله والذي نفس محمد بيدي حديث أبو هريرة في صحيح مسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار لا يسمع بي سماعا بالا شرطيا وشبهات كي كدام مادان ولقوك لبحو وحان هذا كور كف النونو 8 سنة كهر baan waan idhi muxuu ahaa takfiir ma radeen markaasaan ayagana ku tumanay masaa'il badan oo kala indhaha kaga istaagnay waxyaabahaas waa hore lagu soo jabay wax jira ma buluuq baa la shardiyaa in ruuxan xujadu gaadho
با شرط حجة قاريس الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إما إن لفظك يا معناه بأوجار روحي يا إما إن حكمك معناه أوجار صومالي بدن وحلقة يا با تفسير كما يقانان لكن قرآن كوحو الشيء أف صوماليان بيكون يقانان معنيه صوتهم بيهيان نينك الصومالي ما أنت هدي اللي هذا واحد دين تكتقان أما علماء كسو قاعد يدي أو إسكاشك أنك قرين وكا قريناي تون مجلد بقرهيا علماء وصومالي عالم العربي والإسلامي ضدك أقوى روية مركز لقاها الله يفكر كودية مسكحاني وحي فانزينيين أرد عالم الإسلام انتاتك دقيسي إذا عوض واحد علماء لو يدين هاي علماء الشاشات كصوف فريستي قنوات كفريستي عربيت سؤالها لو يدين طلبوا يا أرضضوا ويدين دقيسو وأرن عاشق قرطة يا صومالي وهو رأي كسفر إبالة لا تاقين هاي الشخصان معان كي لا نينك الصومالي يقولون يسكح الشهد والله قيابا أما أفكان عجمي دب أوكيانو أما عربي وسنة قلنا وادعي كرتا لكن وحاوي هدان إنه السيدي محو هاي هندي يا باكستان يا بنجلاديش وحين نقانا أنا في صومالي كقر اللهين والله بحسن له وإذا دي هندي جوجا بنجلاديش محو هاي باكستان لغة أردو يقرأ عربي ما يقانا أردو يقرأ هيان نمن أردو يا عربي إسلام يقانا هي ويترجمها هيان عربي بدك كتبه وين بين نقطين نيك هذا عانك أبو الأعلى المودودي اللي يقني مفكر كيف فقيه مضى إلى يكون أنفعين بدونه كمذا ما كان يكتب العربية وحقوق رجلي أردو وحقوق رجلي كذبنا وحلو ترجم لو بدل الجري عربي كتبنا أعطينا فربضان والروح يحركيين تأذوا استعمالان مصيبة أي علوس دين بدنا حنبارسن وحلقوا قرأ أصل كيسورة في الصومال وكان لقوا قرأ كذبنا وهذا أفك يقني بدلي gabagabadu waxa weeye fariinta sheekhu uu sheegahay ummadda waa horay gaadhay iyadoo sidaa tahay xaaladaha qaarkood iyo dad khaasa iyo qadiya muayyan oo qaadi iyo xaakim loo keenay labtirkeedu in la lafa bixiyo oo si fiican la iska hubsay iskaga baantay laakiin xujadu fa ilaahi alhujjatu albaligha ummadan xujadu waa gaadhay diinta ilaahay waa ka warqabaan waa lagu karleeyahay qaata wahaabiyatihiin diintii baad ku ciyaaraysaan akhwaan baatihiin talabiib baad ka timaadeen argixisatihiin bay ka dhammaan la'yihiin intaaba nabiga waa lagu lahaa saaxir baa tahay kaahin baa tahay beenaalaa tahay asaatiirul awwaliin baa tahay bal kufaaru quraysh iyo carabta kale iyo gaalo kaleba oo ka horeysayba ambiyada markay la dagaalmaan mar badan waxay dhigi jireen ilaahay